Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soomaali marka aan idhaahno waxaa maskaxdeena kusoo dhacaya waa Soomaaliya, waddanka quruxda badan ee dhaca bariga Afrika una qaab eeg sida geeska, waana sababta loo dhaho Horn of Africa. Waxay Soomaaliya leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer qaaradda Afrika, dherer gaaraya ilaa 3333 kiiloomitir. Masaaridu waxay u yaqaanaan dhulka Soomaalida dhulkii ilaahyada, sidoo kalena Farisiintu dhulkii ninkii dheeraa. Kiriiguna waxay u yaqaanaan dhulkii Cinnamon, Romaaniyiintuna waxay u yaqaanaan dhulkii Eromoniyada, Chinese-ka horena laftirkooda waxay u yaqaanaan dhulkii Unicorn-ka. Waa dhul dihin ilaahayna ku manaystay kheyraad ay ka mid yihiin xijiga ama fooxa, heer ay ahaan jireen hadiyadaha ugu qaalisan ee loo geeyo baadiriyaasha kaniisadaha adduunka. Welina kaniisadaha ugu waaweyn ee Roma waxaa fooxa looga keenaa Soomaaliya. Weli Soomaaliya ayaa kaalinta koowaad ku jidha dhanka soo saarista xijiga. Soomaalidu waxay taariikhdu sheegtaa inay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee geela dhaqda. Taariikhdan waxay qortaa ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaatu wassalaam, waxayna Soomaalidu geela u sii gudbiyeen waddankaas Masar iyo Bariga Dhexe. Maanta Soomaalidu waxay leedahay kalabar geela adduunka ugu badan. Dhanka kale, waxaa sooyaalka Soomaalida baal cad kaga jira fardaha oo ay Soomaalidu dhaqaalaysan jireen, waxaana laga helay balliyadii Soomaalida raad fardeedkii ugu weynaa abid. Waxaana loo isticmaali jiray fardaha dagaalada iyo isaga caabinta colaadaha iyo cadowga, iyagoo door muhiim ah ku lahaa dhaqankeena. Dhanka kale, faraskii caanka ahaa ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ayaa sababay in taallo loo dhiso loogana sameeyo magaalada Muqdisho. Waxaa aad u isticmaali jiray boqortooyadii Adal ee Saylac ka dhisnayd, kana talin jirtay inta badan dhulka bariga Afrika. Ma ogtahay in mid ka mid ah doonyaha ugu qadiimisan adduunka ay Soomaali lahayd, sidoo kalena lagu daabuli jiray fooxa iyo agabka ganacsiga Soomaalida. Soomaalida waxaa lagu tiriyaa inay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee cilmiga badaha iyo dabaylaha ka dhaca kala yaqaan caalamka, waxaana arrinkan qiray caalimkii Strabo. Dhanka diinta, Soomaalidu waa dadkii ugu horreeyay ee diinta Islaamka soo gaartay iyo risaaladii suubanaheeni Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, waxaana caddayn u ah masjidka afarta qubi leh ee magaalada Saylac ku yaala markii ay muslimiintu Maka ka soo hijroodeen soona gaareen xeebaha Soomaaliya. Dhanka ganacsigana, silsiladii ganacsi ee u dhaxaysay Afrika iyo Aasiya ee loo yaqaanay Medieval Silk Road waxaa aasaasay ganacsato ka timaaday Muqdisho iyo Soomaaliyaba, kuwaasoo xarun ka dhigtay waddanka maanta loo yaqaano Mozambique, iyaga oo dahabka ka guran jiray kana dhoofin jiray halkaas. Madagascar waxaa la sami ah ama la magac tahay Muqdisho. Marco Polo oo ahaa ganacsade Talyaani ah, sidoo kalena ahaa dalmareen, ayaa waxa uu isku khalday magaca Muqdisho iyo Madagascar xilli uu ku sugnaa Mongolia. Waxay sababtay in hogaamiyihii Mongolia ee Kublai Khan inuu soo diro koox loo soo doortay si ay ganacsi ugu sameeyaan qaaradda Afrika, gaar ahaan xeebaha Soomaaliya ee Muqdisho. Balse shaki laga qabay ayaa sababay in la xiro, maadaama looga shakiyay inay jaajuusin yihiin. Kublai Khan-kii Mongoliana waxa uu soo diray koox kale, iyagiina waa la xiray. Salaadiintii Soomaalida ee sidaas samaysay waxay Afrika ka badbaadiyeen in Mongoliyiintu Afrika soo gasho, waana arrin xusid mudan. Imbaradoriyadii Soomaalida ee Adal xarunteedu ahaydna Saylac ayaa ahayd tii ugu horreysay ee ku dagaalanta madfaca dhammaanba qaaradda Afrika. Sidoo kalena imbaradoriyadii Adal waxay ahayd midii ugu horreysay ee jebisa ciidamo ka socda galbeedka, dagaal aad u kharaar oo sababay in Christophe da Gama lagu dilo isla goobta dagaalka. Waxay taariikhyahanadu xusaan in salaadiinta Soomaalida gaar ahaan kuwii Muqdisho ay samayn jireen lacago gaar u ah oo ka samaysan bir, waxaana laga helay raadadkoodii Ciraaq, Dubai iyo Turkiga. 1580yadii ciidamo Soomaaliyeed ayaa waxay la midoobeen ciidamo Turki ah ee ka socotay imbaradoriyadii Ismaaniyiinta, iyagoo duulaan ku qaaday ciidamo Boortaqiis ah oo degan bariga Afrika, gaar ahaan dhulka Swahiliga, waa dhulka hadda loo yaqaano Kenya. 1660kiina waxay isku dhiibeen ciidamadii Boortaqiiska ahaa, ciidamadii isugu jiray Soomaalida iyo Ismaaniyiinta. Imbaradoriyadii Ajuuraan waxay ahayd mid ka mid ah imbaradoriyadihii ugu faca weynaa taariikhda Afrika, kana talin jiray labada webi ee ugu weyn bariga Afrika. Qarnigii 13aadna nin Soomaali ah oo la yiraahdo Saciidkii reer Muqdisho waxa uu safar ku maray dhulka Carabaha, Hindiya iyo China. Qarnigii 14aadna Cabdulcasiis oo ka yimaaday Muqdisho ayaa waxa uu madax ka noqday jasiiradaha loo yaqaano Maldives ee ka mid ah jasiiradaha ugu quruxda badan adduunka maanta ee dalxiiska loo tago. Wadaage, ma ogtahay in wadaad Soomaali ah uu aasaasay magaalada Aluhaya ee dalka Yemen? Waa qarnigii 15aad. Sidoo kalena Sri Lanka, magaaladii ugu horreysay ee qaab magaalo ahaan loo dego, waxaa aasaasay wadaad Soomaali ah
magaaladana waxaa la dhahaa Berwala. Ma ogtahay daawade in bunka ama kafeega maanta adduunka laga isticmaalo ay dhoofisay adduunkan u soo bandhigtay ganacsato Soomaali ah kana dhoofiyeen magaalada xeebta ee Berbera una dhoofiyeen Yemen kadibna u sii dhoofiyeen adduunka daafihiisa gaar ahaan Yurub. ganacsatada Soomaalidu waxay sidoo kale boqortooyadii China u geeyeen geriga heer maantay luqadda Chinese-ka loo yaqaano geriga waxayna u sii gudbiyeen Korea iyo Japan. Riwaaq al-Jabarthi iyo Riwaaq al-Jayla'i waxay ahaayeen khubaro ama aqoon-yahano Soomaali ah waxayna soo saareen aqoon-yahano Masaari, Moroccan iyo Cusmaaniyiinba ah. Al-Jabarthi oo ahaa aqoon-yahan Soomaaliyeed sidoo kalena ahaa qoraa ayaa waxa uu diiwaan geliyay duulaankii Naboleonta ay ku soo qaadeen Masar. Maqribna ganacsato Soomaali ah ayaa waxay ka aasaaseen masaajidka ugu weyn uguna caansan waddanka heer ilaa maanta looga yaqaano masjidka Soomaalida. bulshadii ugu qadiimisaneyd ee United Kingdom ama Britain waxa aasaasay ganacsato Soomaali ah waxaana loo yaqaanaa Somali Community waana community-ga ugu qadiimisan adduunka. Ali Yusuf Kennedy waxa uu samaystay saldanad xarunteedu tahay Hobyo sidoo kalena hogaamiyihii daraawiishta waa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo ciidankiisuba waxaa taariikhda u gashay inay loolankii ugu dheeraa la galeen gumayste waa Britain xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka oo ugu awood badnaa waxayna gaareen heer ay diyaarado ku duqeeyaan urashadii dawladda